السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Deeqa kusoo dhawaada barnaamijkeena Psych Talks kaas oo aynu ku sahamin doono kana sheekeyn doono waxyaabo badan oo la xiriira mental health-ka ama caafimaadka maskaxda. Xalqadeena caawa ee koobaad waxaa marti inoogu ah Asma Dhamac taasoo ah licensed therapist oo ku takhasustay barashada cilmi nafsiga kuna shaqeysa hadda xarunteeda Sirta Maanka oo lagu daweeyo dadka la tacaalaya problemska aynu oranahay cilmi nafsiga ama maskaxdeena ku dhaca. Soo dhawo Asma. Mahadsantahay Deeqa. Dhawahay. Asma, haddii aynu su'aalaheeni u guda galno oo maanta lagu oran lahaa Asma qeex 3 erayo Asma ku qeex leh maxaad oran lahayd? Okay. Horta wallahi waxaan shalay isku qeexi jiray maanta iskuma qeexi karo. Laga yaabaa waxaan maanta isku qeexayna bari isku qeexi karin. Laakiin maanta waxaan oran karaa Asma waa qof horta kow waxa ugu badan ee aan arkay organized ama maxay ahayd toolay shaqooyin hadan qabanayo kale dadka badan la shaqeeyaan arko aad bay runtii ma oran karo igu dhaleecay laakiin way iga xaraabaystaan waxay yiraahdeen waxaad ku adag tahay waxyaalo badan markay noqoto qof la shaqeynayo kale oo mar walba waxa wanaagsan dhaqankeena runtii uma sameysna dadkeena marka si loo eego waxyaalo fara badan dadka qofkii marka shaqo aad iska sugayso oo kala marka qofkii wax u dirtid adiguna wax sameynaysid sidoo kale waqtiga aad ku heshiiseen oo kale inuu qofkii ka soo ballanti ka baxo kale marka taas oo kale aad taawta way jirtaa waxa kale isku qeexi kara waxa weeyaan creative ama maxay ku noqonaysaa Soomaali hal abuura in oran karo maanta Asma ahaan in hal abuurnimadaydu runtii masha Allah fiican tahay sababtoo ah waxyaalo fara badan oo dad badan si u arkaya mar siyaabo badan oo kala duwan u arki karaa marka waxaan isku qeexi karaa inaan oran karo inaan ahay qof hal abuur badan ta kalena waxaan oran karaa inaan dulqaad badan ahay taana waxaan ku keenay fiilkan ku jiro ama shaqadan ku jiro runtii dulqaad fara badan bay u baahan tahay waxa oran karaa waa trait ama waa shakhsiyad runtii nooc kamid ah aan asaasantay markii aan fiilka soo galay ama markan bilaabay inaan ku shaqeeyo la talinta ama therapy ku shaqeeyo sababtoo ah qofku markuu ku yimaado ama xaalkiisa kaaga sheekeynayo xaalado badan oo xanuun badan waxaad u baahan tahay inaad dulqaad fara badan lahaatid oo aad qofkii waqti badan aad siisid marka taa waxaan oran karaa wax ii biloomay bay ahayd markii aan runtii fiilka soo galay horta qodobka organize aniga garanayo marar badan oo ballan inaga dhaxayso waxay raadaan inuu Asma la balansanay Asma waqtigeeda laga soo horeeya I think dhaqankeena Soomaaliyeedna uma sameysna inay on time ama ay waqtiga ilaashadaan laakiin wax walba marba bilaama din hore u sii socnaa Asma mental health marka maqasho maxaa maskaxaaga soo dhaca wallahi caafimaadka maanka waxa jirta horta midna qeexitaan baa jira caan oo la isla wada yaqaano oo qofka marka la oran karo caafimaadka maankiisu waa qof taama waa qof jir ahaaneed caafimaad qaba maskax ahaaneed caafimaad qaba bulsho ahaaneed caafimaad qaba ruuxiyan ama spirituality caafimaad qaba caadifiyana caafimaad qaba waa shantaas weeyaan shanta haddaan si yaro kooban u sharaxo waxa weeyaan qofka jir ahaaneed caafimaad qaba waa qof xanuunada jirko kale oo sahana kale qof daryeela jirkiisa ama ha jimicsado ama ha lugeeyo ama ha noqdo qof si kale jirkiisa physicalkiisa ama caafimaadka jirba u ilaaliya qadu qofkaas maaragtay sahana kale aanu hayn qof is ilaaliya ama maaragtay active ama xataa nadaafadiisa ba ilaalin waxa la oran karo qofkaasi waa qof xanuunsanaya waa sida lamada kuwa kale haday noqoto caadifiyan qof meel walba iska joogo kala duwan ooyaya ama iscontrol karayno aradiisi maaragtay qofkii maaragtay control karayno kale kaalaftirkiisa waxa la oran karaa qofka caafimaadka maankiisu ma dhameystirna waxa kale oo jirta bulsho ahaaneed qofkaan dadka qaar baa jira aanan garanaysid dadka u dhaxgalaan dhaxgalka dadku aad ugu xun oo taas waa xirfad laftarkeedu haddana waa badqabkana qayb weyn bay kamid tahay oo qofka markuu bulshada ku jiro aan dadkii la tacaali karayn waayo waad la shaqeynaysaa dadkii waxbaad baranaysaa dadkii baad ku dhex jirtaa taa laftarkeedu waxaan oran karaa qofka caafimaadkiisa maankiisu ma wanaagsana marka waa adigu waa shantaasoo mid walba laga eegayo halkuma qofku markaa taagan yahay
طبعا وحصرية قفان psychology وحبا في جرني ما دام إنه دونينا إنه بشدي إنه وحبرنا إن ما أوران كرنا مركا قفك caafimaadkiisa jirka aan ilaalin waa qof caafimaadka maskaxdiisu ay wax ka dhiman yihiin ama problem uu jiro ama wax qaba because inaga badanka Soomaalida waxa la eegaa in caafimaadka jirka ama qofka muxuu xanuun jirkiisu uu qaba muxuu dhakhtar u tagay marka la soo baaro maxaa laga heli karaa ma oran karaynaa maadaama shantan qeexitaanka ay ku imanayaan in haddii uu qofku mararka qaar xanuunka jirka ku dhaca qofka inuu sababi karayo xanuun maskaxiyan boqol عرفت حكومة ماذا عقل سليم في الجسم السليم سمعين واحد شرتا قفك بني آدم كي شركة كحنون سنة يا أما حنون ده شر هذا كسو كردو كله يضطك مع حتى حنون ذا للنول وحيقول بدنت إني حنون دي مرة لأنه لان كران واي قفك هدو ما أنت حالات قلبا كتشرا أما يسترسا كتشرا ده شركة كسو إف بحيسا وما أنت ذاتك مركن قف بيشينا وكله كوي مادو أما قف حنون سنة يكوي مادو waxyaalaha ugu horeeya yiraahdan waxa weeyaan garbaha ay xanuunaya caloosha ay xanuunaysa dhabarka ay xanuunaya jilbaha ay xanuunaya xanuunkaasi badan ama xanuun run u jira oo marka dhakhtarkii tagaan la shay baaro qofku waa qof caadi ah xanuunaya oo waa ma sha Allah faytiminada xataa hay wada yihiin haddana qofkii xanuun ka cabanaya marka waa mar walba qofku maskaxiyan haduu ama xaalad dhimir bayaan oranina depression qulub ama stress la kulmo kale mar walba waxay ka soo ifbaxdaa qofka jirkiisa marka haddii qofku xanuun leeyahayna ama xanuun de ku dhacana mar walba qofkii kama mar walba way jirtaa xanuunadii dhimirkuna qofku way la soo tacaali karaa maanta qof hadaa lagu sheego xanuun xun ilaahay naga hayo kansarko kale de qofkii qulub uu galaya depression uu galaya uu warwaraya qofkii wuxuu ka fakarayaa noloshiisa horeysay ahayd tiisa maanta tahay marka qofku xaaladda uu gali qasab uu galaya imka therapist baa tahay adigu dadka waxaad ku daweysaa hab kamid ah habka psychology lagu daweeyo oo therapy ah ama Soomaali hadii Soomaaliyeed wada sheekaysi ah maxay oran lahayd dadku intaanay therapy u iman maxay tahay inay kasi ogaadaan therapy ama maxay ka filanayaan therapy horta waa runtii su'aal aad u muhiim ah therapy kalmad Soomaaliya hadan u bedelno la talin iyo hagid bay noqon kartaa la isku geeyay la talintu advice giving laakiin hagid iyo la talin isku jirta weeyaan waxaan taa ku matali karaa ama ku sheeg karaa salahan maanta ilmaha yare socodka baranaya waa la daadaheeyaa soma gacanta la qabtaa u socdaa support baa la siiyaa ama gacan qabasha la siiyaa marka waxaan ku tilmaami lahaa marka terabigu anagoo kale shaqadan qabano waa qofka gacanta ilmaha yar haya ilmihii isaga effortkii bixinayo soconaya hadduu xataa kufo isaga kacaya markaysaa laakiin kaliya ta waxa uu og yahay inuu qof barbar taagan yahay oo gacan qabanaya soma marka wasaas oo kale dadka yahay qofkii weyna ma socodsiineen mi isaga ilmi soconayso u barto wasaas oo kale marka terabiga markan ku jirno qofka waan gacan qabanaa xaalkiisa marka la eego dadku xaalado kala duwan ay kula imanayaan mar walba xaalkii qofku ku sugan yahay ayad la barbar istaagaysaa qofkii aad ka caawinaysaa sidoo uga baxo isagu xaalkaas mararka qaar dadku waxay moodayaan terabiga marka laga hadlayo in adigu aad xalkii keenaysid ama de adigu aad problemkii aad u xalinaysid taasna waxaan kaga hortagi karnaa wal malaynaya in qofku marka hore uu terabi uu ka fikirayo inuu ogaado expectationkaad u imanaysaa waa maxay which is important one anu aaminsanahay qofku intaanu therapy iman inuu ogaado maxaad expect garanaysaa terabiga oonu de just inaga aanu de dushay naga wasaaran xalkii inay la iman haddaynu wax yar usii galno safarkaaga shakhsiyadeed asma يسدو موضوعا علم نفسه موضوع مهم kugu noqday markii ugu horeysay aad la kulantay xaalad mental health gormay ahayd bal oran karaysaa wallahi waxay ahayd yaraantaydii was a long time ago waqti aad u fog bay ahayd waxa jirtay waagi aan intan ka maqnaa wadanka fasaxyada aan niman jirnay wadanka marka imika horta alxamdulillah sidii hore aad bay uga yartahay aan ma arko aad uma badna laakiin waaga waxa jirtay in dadka xanuunsanaya dhimirka ka xanuunsanaya ina na dhibaateyn jiray markan dalkan ku soo noqono inta fasaxa joogno aan dabada banaanka u soo baxo waxa la kulmi jiray qof wadada maraya caruurtii shiidayso dumarkii dadkii kale wadada marayna biyo ku shubayaan yani wax aad iga yaabin jiray heed
ka hor waxaan socon jiray waayo wadamada kale ma kala joogo saano kale qofka tuugaaba la dilaa waxaan socon jiray qof wax soo xaday bay garaacayaan dadkan ya marka intii hore dhan waxaan markii dama arkay qof iska marayo wadada halka ka soo socdo umay carruurtu ninka waalan waxaan soo jiray dumar waalan meenay jirin xataa sababta nin waalan man maqli jiray gabadh waalan oo wada maraysa maan arki jirin oo maan maqli jirin badan ayaga guriyuhunba kale lagu hayn jiray raggunba banaanada mari jiray marka runtii wax aad ii murug geliyahayd oo even carruurta dee markaan arkay carruurtii anigoo ka naxsan say u gelayaan waxa igu naxdi badnayd dadkii waaweynaa say ula tacaalayaan qofkii maaragtay biniaadamka qofkani waa qof xanuunsanaya dad doonto dhaxan baa dhacaysa maryo ku filan ma gashna hawdan 3 xisho xamuu cunin cuntu soo raadso yani tacaamulka ama behaviorka ay kala kulmay dadka wax aad runtii u muruga fara badan weeyaan qofkina ma oranay iga daado xataa ilaa iga daayacdi maqlimayso oo waxa loola tacaalaysi qof aanan de basically xayawaanka ka sii liita ya xayawaanka wax la siiya markuu u yimaado qofka marka horta runtii taas markaan arkay iyadoo tii ugu mudan tahay ayaa markan iskuulkii ku jiray salaadadii u dambeysay ayaan cilmi nafsigan wax ka ogaaday kadib baan isku dabaqay wallahi waxa soo jiri jiray xanuunadaas dadka ku dhaci jiray aan runtii arkayna inay bulshadeena aad uga liitaan xagga cilmi ahaan iyo inay wixii fahmaan inay xaalad qofkan ku jirto ay tahay aniga horta taa ugu wanaagsan anoo markii ugu horreysay cilmi nafsiga aan maqlay ama aan bartay xilliga jaamacadda waa jaamacadeena psychology waxa weeyaan course qasab tahay qof kasta inuu barto faculty-gina kumaan jirin markii dambaan ayaan arkayo malahan halkan ayaa wax bay ka wanaagsan markaan dhigtay kadib ayaa markaas igu horreysay inaan maqlo xilliga jaamacadda oo lagu kala wanaagsan ayaan odhan karaya maxaad odhan lahayd caqabado maxaa kaala kulmay intii aad ku jirtay barashada cilmi nafsiga caqabado wax noqon karaya bulshada familiga bulshadeena nafsadaada caqabado masleedaha waad kala kulantay barashada cilmi nafsiga wallahi qaar badan ilaa imika to be honest ilaa imika horta qof kasta wax kastuu bilaabayo caqabad ma waayayo khaasada siiba haday tahay wax dadkii ku cusub imka waxa oran karaa dawo farakotiris dadka waxaan imka bartay dadkii Soomaalida haay xataa de qurbaha joogan oran karo wixii ku takhasusay ee fahmaye dhalinyar fara badan oo qurbaha joogta dhaqaatiir way ka wada yihiin de wadankii ma joogan xaalka wadanka waxa ka dhacaya ma garanayaan marka inta wadanka macal joogta ee timi ee wixii sii dhex gashay ayuu ma arki karaysaa wixii caqabadaha la kulmayaan horta kow waxa weeyaan fikradaha khaldan ee laga aaminsan yahay cilmi nafsiga way ka mid tahay qofkii in laga aamino dhalinyartii oo kale in laga joojiyo xiiseynaysa inay barato cilmi nafsiga in laga joojiyo inay bartaan walaal diintii baad waxaan kaga baxaysaa falsafad baad waxaan dhiganaysaa maxay ahayd toolay hadad inan tahay waliba in la yiraahdo sahan oo kale marag baad u shaqeynaysaa warwaaran ma garanaysaa taana aan ku darsado waxa jirta dadku aad waxay isugu khaldaan psychiatrist qofka dhakhtarka dhimirka iyo therapy waxa la sameeyo ama talk therapy haddaan si yaro kooban u qeexo qofka psychiatric waa qof dhakhtar takhasus ku soo qaatay san dhamaan ogsoonahay aad soo garanaysan daawadayaasha uga faa'iidino qofka psychiatric waa qof takhasus ku qaatay dhakhtarnimo qofkaasi waa qof dawo bixiya qofkaasi waa qof ku sheega qofkan xanuun ku qabo halka anigu shaqadan qabano talk therapy ay tahay ama la talin qofka aad la soo fadhiisanaysid aad ugu yaraan 45 daqiiqo ilaa saacad aad siinaysid qofkiisa aad isku wareysataan oo dhowr jeer qofkii kugu soo noqnoqonayo taasina qofkii aad maaragtay la shaqeynaysid oo aad baraysid xirfado u baahnaa sidoo ugu adeegsado mushkiladii haystaa ama caqabadii haystay waxaan oo dheeray qofkii inaad waqtigiisa dhageysatid oo wixii ku jiray ka soo saartid marka waxa badanaa waa la isku khaldaa qofkii marka hadduu yiraahdo cilmi nafsi aan baranaya waxa laga wada dhigaya wixiiba inuu yahay qofkii inuu maaragtay dawo qorayo meel dhimir galayo dad xidhan dhex galayo wixii maaragtay way ka badan yihiin runtii baranjiyo fara badan bay leeyihiin sida caafimaadkuba u leeyahay baranjiyo kala duwan oo mid caruurta yahay mid wadnaha yahay mid maskaxda yahay mid basi yahay cilmi nafsiguna taas oo kale isaga qudhiisu baranjiyo badan buu kale leeyahay oo qof walba ku doonay ku takhasusi karo nooxaasta markaan hooyay ku lahaa maxaafada psychology baranaya ayagu raadiyo daweynaysa san kurdeedinka marka waxa laga dhigay wixii inuu yahay shay qofku ku waalanayo sababta ama diinta uu kaga baxay maadaama Soomaalideena wax kasto ku cusub ay la yaabaan maxaad oran lahayd experience nooceeya oo la kulantay noloshaada
ayaa maanta asma kaa dhigtay ama qofkaad maanta tahay? wallaahi toogu weynaan marka aan odhan karo waa marka halka usoo guuray. waxaan go-aan ku qaatay I think wax bil ka yar inaan dalkii yimaado. kadib go-aanka inaan joogana markaan imi bay ayay iga soo go'day. waxay ahayd runtii lama filaana. marka waniga kugu leh dee caqabado fara badan bad dad bulshadii kala kulmaysaa, waxbarashadeeda xagga faamiligood kala kulmaysaa oo de wixii waxaa la odhanaya waxaan kuma wanaagsanay iska daa, rag bad wixii dhex gelaysaa. bulshadiiba wixiiba aanay fahansaneenba oo qofkii waxaad uga soo bilaabaysaa zero. waxaad odhanaysaa waxaan kelmadii meeshii ugu hoos ilaa imka therapy kelmadu ma hayno sababtoo ahna because de weli maan kelmadii weli maarata cilmiga welina muu soo dhex gelin si fiican. marka horta runtii waxaa odhanaa markii aan imi waxay noqotay maxaa dhahdaa soomaalida guntiga dhiisha isaga dhig ama dhexda xidho. waxay igu noqotay inaan imi bulshad meel ka duwan meeshan joogi jiray oo waxaa dee dhalinyar qof iska iskuul iska dhigtaa faamiligi isaga noqdaa raaxaba la isaga jira magaranaysaa. laakiin markaad meel cusub timaadid de waxyaalo fara badan ba kugu cusub oo ay tahay in qasab kugu tahay la qabsatid, taasna waqti badan bay kugu qaadanaysaa. so waxaa odhan karaa runtii isbedel weyn bay noloshayda aad ugu yeelatay dee wadanka inaan markii ugu horreysay aan imi. marka maadaama dee aad isbedeshay waxaad ka timid dee meel cilmi nafsigu wax la aqbalayo waxaad timid meel hadda inuu weli waxay dhahdaan wadankaa cururku koreeya bay dhahdaan marmalana inuu wadankii hadda koreeya inaad la kulantay. bulshada Soomaaliyeed marka laga hadlayo waxaa marar badan seen hore usoo sheegnay fahamyo kala duwan ay ka haystaan cilmi nafsiga. 2-3 khuraafaad oo ay khuraafaad mid bay odhanayna because wax walba oo isleedahay bulshada ku dhex jirtaa kuwan ka soo hadalnay bay noqon karayaan, qaar cusub bay noqon karayaan. 2-3 noloshay khuraafaad laga aaminsan yahay cilmi nafsiga. walahi mid baa jirta aadan u nacabahay oo ah qof inuu xanuustaa inuu bogsado mooye inuu ladnaado ma laha. basically waxay tahay qofkan waad ka soo caadi yaro noqon karaa laakiin qofkii xanuunkii weligii buu ku jirayaa oo xanuunkii dhimirka ahaa. runtii waa kelmad aad inoo baabiisay markaad si u eegtay ilaa imika aad loo adeegsado. marka qofka biniaadamka dee maanta heerkan taagannahay waxaa odhan karaa berigii hore 20 sano ka hor ama 30 sano ka hor waa odhan karaa dadku daynay waxaa aaminaan dee it's not normal laakiin xaaladii ku jireen ma ku keeni karaysa waayo dagaalaa lagu jiray dadku dee xaalad adag bay soo mareen. laakiin maanta yacni 30 years iyo ka badan dadkiiyo telefoonno wada haysto wax wada dhiganaya ama dee ka arki karaya ka akhrisan kara wax dhalinyartiyo jaamacada wada dhigatay oo dee maanta xataa waalidiinta dhowr iyo 30 jir iyo wixii ka weyn dee wadad wax bartay bay u badan yihiin. maanta inaan heerkaa taagannahay oo dad dhalinyaro aaminsan fikirkaasi aad bay runtii noo murugo gelinaysaa. sababtaa dee ha yaraado adeega wadankeena lagu hayaa haddana stiil wixii waa la hadal hayaa. of course waan u baahannahay inaan sidan kasii wanaajino laakiin kelmadaasi waxay ku keenaysaa in qof walbo xaalad ku sugan dhimir inuu qarsado. qarsashadaasna waxay ku keenaysaa mar walbo qofkii wixii aamuso uu qarsado mar walba xaaladiisii sii xumaato oo aanu caawinimo weydiisan. marka qasab kelmadaas haddaa marba aad ka fikirtay ama lagu sheego dee adiga dib baad u goranaysaa halkii space lagu siin lahaa aad ka hadasho. so stigma Soomaali maxay ku noqonaysaa asmaa? wax la khalad fahansan yahay. marka ma odhan karaynaa khuraafaadkaas oo kale in qofka ay saameeyaan inuu caawimo weydiisto saad hore noogu sheegtay haybsoocna ay ku noqoto dadka la nool xanuunada dhimirka? of course imika waxaa jirta dadka badan aan arkaa waa dad kasoo dhuumanayaan badankood faamiliyadoodii runta marka laga hadlo oo dee wax xaqiiqiyo jira. taas anigu kuma qeexayo oo ma odhanayo kuma judge garanayo yani qofkii laakiin maanta qofka waxa ugu weyn aan ka rabno qofkan dee caawinimada noogu yimi waa inuu qoyskiisii iyo dadkiisii iyo asxaab dadkii ku hareereysnaa inuu iyagana caawinimada ka helo. marka dee dhinac keliya wax kama soconayaan. qofka marka la daadaheynayo way dhowr qof marba qofkan u yimaada gacanta qabtaa. qof keliya ta intuu sugayo maaragtay de qofkii horumarkiisii ama wuxuu samayn kar lahaaba dib uga sii dhacaya marba. marka waxay ku sababtaa dabcan qofkan waxay haybsooc ugu noqonaysaa ina maxay tole qofkani lagu shaambadeeyo waa kii xanuunsanaya ama waa tii xanuunsanaysay oo saas marka qofka noloshiisa dhanba ku baabacdo
وقفكي سبحان الله مسكحني إلهي دينا سيينا waxa adigu is aaminsiisid bad noqotaa haduu qofku maanta because wixii ma lagu leeyay mar walba kii xanuunsanay waa tii xanuunsanaysay wixii yaraa uu qabsan kar lahaa xataa qofkii ka dib uga goranaya waanu qabsan karin waanu awood xataa wixii ku qabsado aw iska waayaya sababtoo qofkan murugo fara badan iyo qulub fara badan ayaa ku aruuraya kadib qofkii wixii basiga noloshiisa xataa uu qabsan karayay ugu fudud ee ah inuu xataa isagu isnadiifiyo ama inuu at least yarabax ama inuu at least wax qabsado ayaa meeshii ayar uga soo tagaysa saasay markaa qofkii ku keenaysaa dabcan inay mushkilad ku noqoto noloshiisii ma oran karnaa asma inaga badanka community leadersku waxa weeyaan caaqilada shuyuukhda magaalada iyo waalidiinta maxay oran lahayn inay wax ka bedelaan markaynu ka hadlayno haybsooca dadka maskaxiyanka u xanuunsanaya wallahi wax walbo wadankeena ama de bulsho ku salaysanba dadka hogaamiyaha ah baa mar walba maaragtay gacanta ku haya oo de anagu waxaan qaban karno although isbedelkaas isku dayayna sameeyno ha yaraada laakiin isbedel weeyaan laakiin meesha isbedelka runta ka imanaya waa hogaamiyaasha bulshada haday shuyuukh noqdaan haday madax noqdaan haday waalid noqdaan de waa dadkii gacanta ku hayay dadkan ya mid kasta mas'uuliyad iyo xaq buu ay dadkan ku leeyihiin mas'uuliyadooduna way saaran tahay oo maanta de qofka shiikha waxa mas'uuliyad saaran inuu dadkii ku wacdiyo inay qofkan bini aadamka xaq uu ku leeyahay inay u naxariistaan qof xanuunsanayo meel maraya ay maaragtay waajib ku tahay dadka bulshada inaan dhibaateyn kan kale hogaamiyaha maaragtay ama madax ahaado ama wasiir ahaado inay maaragtay adeegyadii dadkan u baahnaayeen ay u fududeeyaan ama ay u sameeyaan meelihii goobihii dadkan u baahnaayeen waalid haday noqoto inay ilmahoodii ama qofkii maaragtay ilmahood ahaa ama qofkii ilmahooda ugu beegnaayo kale inay gacan qabtaan oo dhiirigeliyaan ilaa waa qofkii ugu dhawaa guriga la joogay hadii qofkii kelmadaha lagu turtuuriyo laga ilaaliyo qofkii ina maxay dawooyinkiisa loo ilaaliyo qofkii in la dhiirigeliyo noloshiisa inay sii socon karto inaanu halkaas ku koobnay marka isbedel aad u weyn baa runtii dhici lahaa haday dadkaasi ku jiri lahaayeen qofka noloshiisa waxaan oran lahaa isbedelkuna ku qiimaada mar walba waalidka hadii waalidiintu iminka koray waalidiinta hadda waalidiinta cusub ee wax bartay hadii gurigooda ay normal ka dhigaan ama ay normalize garayaan in emotionka laga hadlo cilmi nafsiga laga hadlo qofka problemkiisa uu ka hadlo I think yani dadkaas hadhow noqon lahaa community leaders ama hogaamiyaal noqon lahaa marka waxay noqon lahayd wixii wax fudud baa oran lahaa laakiin waxaan rajeynayaa in hogaamiyeyaasheena hadda iyo leaderskeena hadda inay bal arrintaa wax weyn ay ka qabtaan asma haddii iminkayn odhano qofku wuxuu dareemayaa guilt ama shame inagoo ku xidhaynaa xagga diinta because of waxyaaba badan oo dadku aanay aaminsanen waxaa kamid ah in cilmi nafsiga laftigiisu ilaahay subxaana watacaala uu ku sheegay qur-aanka marka ama dhinaca qur-aanka ha noqoto ama dhinaca jirkiisa ha noqoto ama dhinaca socialka ha noqoto qof guilt ama shame dareemaya oo ah waxyaabaha ugu fudud ee qofku dee cilmi nafsiga uu ku dhici karayo maxaa seed oran lahayd uga soo gudbi karaya si fudud horta walaa waxaa jirtaa diintu waa qayb weyn oo muhiim ay ka mid tahay qofka caafimaadka maankiisa hadduu rabo inuu qofku maaragtay taam noqdo oo ayadan baaba kusoo aroortay alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub xasuusta ilaahay waxay dejisaa quluubta hase ahaatee iyadoo taa tahay haddana qof si kastuu diinta aada ugu xidhan yahay dee xaaladahan dhimirka oo wax qofka ku dhici karaya ya waxaa jirtaa xaaladahan dhimirka badankood ama boqolkiiba 90 dadku lama dhashaan waa wax markuu qofku isagoo dee markuu qofku weynaado ku dhaca taana waxa keenaysa laba wax weeyaan markuu qofku xanuun dhimir ku soo baxayo horta kow hidda-sidayaashiisa uu ku jiraaba uu doonaba oo qoyskiisa awowka ama ayika awowaaba xanuunkan lahayba waxa keenaya markay isla falgalaan qofka dhacdo xanuun badan oo noloshiisa ku dhacda soo hana qofkii geeri baa ku dhacday waxa dhici karaysa qofka inuu noloshiisii de wax xanuun badan ku dhacaamo isbedel weyn noloshiisa ku dhaco qaadan kar waayo waxa ku dhaca qofka caafimaadkiisa inuu wax noqdo kale marka labadaas isfal galaan hidda-sidayaashii ama genetics-ka qofkii marka hore ku jirtay iyo wixii ku dhacay qofka environment-kii ama hareerihiisa ayaa qofka ku soo bixi karaa xanuunkii isagoo qofkii shiikho maasha Allah diintii ku xidhan marka qofku inuu diinta ku xidhnaado xagga maartay cibaadada waa qayb weyn oo wax riixaya weeyaan qofka inuu caafimaadka maankiisu fiicnaado haddana qofka isagoo saasa waxa mar walba dhici karaysa qofka inuu xanuun dhimir ku dhici karto
ama xaalad dhimir geli karo murugadoo kale murugada fara badan inta hore markuu qofku murugoodo hadday sii korodho waxay isku bedeli kartaa qulub walwalba isku bedeli kartaa xaalado kale isku bedeli kartaa waa sababta adeegyada dadka loogu sameeyey inay la talin u sameeyaan rasuulka calayhi salaam wuxuu ahaa la taliyaha ugu fiican buu ahaa oo dadku way iman jireen markuu qof murugaysan yahay isagu iman jiray uu dajin jiray uu la hadli jiray marka aan leeyahay therapy ama psychology ma hadda qofkii ina maaragtay fikirka laga haysto de sida xamale filmaanta dhalinyarta dambe daawata kursi buu qofka soo fadhiisanay maanta iska hadlaya ya fikirka maaragtay filmaanta laga arkay ma aha yani qofkii si niyada qofkii u dhageysanaysaa waxaad markaa arkaysaa qofkan horta waxaad isku dayaysaa inaad fahamtid qofkan xaaladda ku jiro adoo qofkii dejinaya xasuusinaya inuu qofkii noloshiida sida u socoto haggii diintana xasuusin noogu daraya marka qofka qalbigiisa dejinaysaa number 1 marka horta runtii diintu qayb weyn bay kamid tahay mar badanna waan arkaayo dadku waxay ka wada dhigaan qof hadduu yara xanuusto waxay oranayaan dee orod cibaadadaada badso orod iska tag halkii qofkii waqti siin lahaayeen qofka biniaadamka maanta haddaan sararka ku yimaado kala deeq ahaan aan rabo inaan wax qalbigay ku jiro ama niyadda ku jiro cusleynaya inaan kaala hadlo oo aan tala kaa doonayo kale oo anigoo soo wado kula wallaahi ayaamahan muruga yar hayso xaaladdu igu adkay te maxaad oranaysaa oo tasbiix qabso fadhiiso oranaysaa dad igu tiraahdid tasbiixda waan qabsanayaaba laakiin waxa dhici kara heer qofkii la nacsiyaba xataa cibaadada uu sameynayay taa laftirkeeda khalad weyn ba ka iman kara way qofkan kaliya ta wuxuu kugu yimi inuu kugu nafiso inuu kula sheekaysto adiga waad ku caburisay qofkii xaaladda ku jiray marka runtii waa shay aad muhiim ah in la fahmo diintu iyadoo muhiim tahay haddana qofkiina waxaa u baahan tahay inaad qofkii intaad kari karaysid aad taageertid waxaan garanayaa marar badan aan dhegeysta nabiga calayhi salaatu wasalaam examples badan baa jira oo laga sheekeeyo in nabiga dumar qaawan ay kasoo horbaxeen oo cimaamadiisa u bixiyey inaanu sheyn garaynin inaanu caayin inaanu ku qaylin waxaa oo soo jirtay in ninka masaajidka inuu ninku adkaajay uu nabigu u yeedhay halkii dadkii kale ay firin marka waxyaabahaasoo dhan waxay kutusinayaan inaan qof kale sheyn garaynin diinteena nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu leeyahay atmamtu lakum diinakum ulahay idin waa laydii dhamaystiray diintiina waxyaabaha dee dhamaystirka waxaa kamid ah waxyaabahan oo kale marka si directly ayaynan u tafsiiran laakiin waxaan qabaa in diinta laftigeedu ay ku dhex jirto waxyaabaha inagu aynu ka wacyigelina dadka in diinta laftigeeda haddii toos loo barto inay ku dhex jirto asmaay maxaad odhanaysa shaqadaadan hadda maalinlaha eed ku jirtid ee talk therapy-ga ah inay kaa bartay ama aad ka baratay bulshada Soomaaliyeed ama clientska Soomaaliyeed ama macaamiisha Soomaaliyeed ku timaad maxaad leedahay hal shay oo ka baratay waa maxay waxa weeyaan inay runtii dad fara badan qof walba inuu dhibaato weyn ama dhibaatooyin fara badan la tacaalayo qof baad maanta arkaysaa ama laga yaabaa dadkan ku imanayo kale marka noloshooda sii aragtidoo kale waa dad shaqaysta waa dad faamiliye leh waa dad caruur korsada waa dad maxay ahayd tolay dee qof halkaa ama kaa soo hor yimaadaad odhanaysid maasha allah qofkani laakiin haddana qofka marka sii dhex gashid noloshiisa aad sii dhex gashid noloshiisa markaad aragtid qofkan caqabado fara badan qofkan la kulmayo uu qarsanayo qofkiina waanu qof kala hadli karayn marka runtii waxaan runtii jeclaan lahaa inaad dadku maaragtay isku naxariistaan waayo dee dad fara badan qofka kugu qoslaya ku hor fadhiyo isagoo qurux badan baad arkaysaa laakiin markuu qofkaasi habeenkii gurigiisa ku noqdo laga yaabo inuu qofkaasi habeen oo dhan hadduu doono maybe ooyayo ama fakarayo ama aanu seexanba xaalado waxyaalo adag ama waayo adagu qofkan ku jiro kale marka runtii taasna waxyaalo badan aan arkay oo ay tahay ina maaragtay waa sababta ku lahaa dulqaadkaygu uu sii siyaadiyay marka dee dadkii noloshoodii ay kaaga sheekayaad aragtid runtii waxyaalo badanoo ku murugo gelinaya adiga ku dhaada dee qof bini aadan aad tahay waa dareemi kartaa murugo ayaad la kulmaysaa ood qofkiisa oranaysaa alxamdulilah marka adiga oranaya alxamdulilah ma garanaysaa noloshan ku jiro alxamdulilah dad iga daran baa jira ama qof xaalkiisu adag taha jira taana waxaan ku dar lahaa xasuusin ah inay ku jirto sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ina lasoo booqdo dadka xanuunsanaya yani taa runtii aad bay xasuusisaa waayo qof marka dhakhtar ugu tagtid aad garanayn de waxaad arkaysaa qofka inuu maanta caafimaadkiisii waayey adigu beriyo kale noqon kartid waxaad runtii ku mahadnaqaysaa ilaahay inaad adigu maanta socon kartid qof maanta ICU jiifaad aad soo aragtid waa taasoo kale un waa qof runtii maanka ama caqabado fara badan noloshiisa haysato adiguna aad ugu mahadnaqaysid ilaahay inaad dee xaaladahaas maaragta aad ku jirin oo kale badanka waxaan odhanaa wacyigelin badan inaynu sameyno
and I think therapy-ga inaynu ka dhigno wax ku habboon dhaqanka Soomaaliyeed waxaan oran lahaa waxay tahay wacyigelin kaliya maaha in aynu shaygii normalize garayno oo muxuu ahaa because of wax kasta waxaan oranaa wacyigelin laakiin filimaan baa laga duubaa ads baa laga sameeyaa haddana halkiin baynu weli taaganahay bal hal shay maxaad oran lahayd sideen uga dhigi karnaa therapy-ga ama la talinta shay ku habboon dhaqankeena Soomaaliyeed والله deeqa dadku horta dhaqanba siduu wax u fahmaa ma garanaysaa annaga waxaa odhan karaa dhaqan kasta ama bulsho kasta waxaa la target garayaa dadka ugu saameynta badan ee bulshada nimka annaga dadka ugu saameynta badan ee bulshada waa caaqilada waa madaxweynaha waxa weeyaan shuyuukhda dadkaas maaragtay waa dadka ugu saameynta badan waa dadka bulshadu aad u dhageystaan ka dambeeyaan dadkaas oo kale marka haday israacaan oo ay wixii maaragtay de go'aan ku gaadhaan inay wacyigelin fiican dadka u siiyaan anigu waxaan aaminsanahay inay isbedel weyn muddo yar oo kooban ku sameyn karno waayo haddii khudbadii kusoo dhageysanayaan ay caaqiladii haddii doona dhiirigelinayaan dadkii maaragtay faamiliyada ama dee qabiilkii oo kale ay kala hadlayaan ama sahanoo kale laga yaabo inay jiraan dad xanuunsanaya maanta marka Soomaalida la eego dee xaafad kasta qof walba aniga iyo adigaba ka mid oo qof walba wuxuu leeyahay family member ama qof qoyskiisa tigii ha ahaado adeerkii ha ahaado habartii ha ahaado eedadii ha ahaado waxa jira qof xanuunsanayo ugu yaraan qof mise laba qof baa jira xanuunsanayo ogyihiin ama aad garanaysid family-ga kaliya ta ah marka taa laftarkeeda u baahan xataa qoysaskii dadkii isku yimaadaan oo dadkan yani qofkan oo kale saa ugu fiican aan u caawin karno oo qofka caaqilka kale wacyigelin fiican siiyo kale inay family-gu iscaawiyaan oo kale qofkaas oo kale waxyaalaha ugu yaray sameyn karaan inay gacan qabtaan marka dadka ugu saameynta badan ee bulshada inay isbedel weyn keeni karaan dhaqankeena marka loo eego dhaqaatiirta waa la dhageystaa laakiin waxa moor uga saameyn badan deemka adiga arkayba dumarka markay umulayaan halku dhakhtarkii waxbuu inad qofka u sheegaya qofkii inantii ama gabadhii umalayso kale waxay ka dhageysanaysaa islaamii dul iimin anaguba saasaanu sameyn jirnay waxaasaan ahaynba iska marka yani waxaad arkaysaa inay dadkii soo bartay yani takhasusyada dhahaa ama cilmiyadii kala duwanaa soo bartay inay saameyntooda aad u fara badnayn oo ay ka saameyn badan yihiin dadkii maaragtay waalidkii hooyooyinkii oo kale shuyuukhdii oo kale dadkii caaqiladii oo kale ma odhanay iyagu cilmi way haystaan laakiin haddana iyagu waxay haystaan kii dhaqankana way haystaan hore dad badan oo waxa jirana imika dee cilmigan maadiga bartay marka iyaga inaan xooga saarno insha Allah hadda inuu yaro gudubna su'aalo yaro degdeg ah waxa maskaxdaada kugu soo hordhaca ay asmay ku jawaabaysaa mar walbana cilmi nafsiga maskaxda ku hay way عيب مياه مصور run داوي مس وقتي قر أما كهذا qor درينا تربتي إن لقى ديجو مثل أقبله درينا تشعلان هيد إني برشيدين أقبشه dareemada oo dhan honestly mid dooro mid baan doortaa content bogsiintu waa adiga waqti siiya way caafimaadka jirka mise ka maskaxda dareekee ugu badan ee Soomaalidu qorayaan xanuunka hal oraa oo Soomaalidu isticmaasho oo cilmi nafsiga oo isticmaasho jeclaan lahayd in la joojiyo qofka dhimirka ka xanuunsanaya ladnaa mooye bogsiin ma laha hal been oo dadku ka aaminsan yihiin dadka awooda leh inay wax walba gacanta ku hayaan ama wax walba garanayaan asma waxaanu taaganahay gabagabadii intaynu gabagabeyn waxaa jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo su'aalo aynu ku milicsanayno wada sheekaysigiini caawa message noocee ayaad jeclaan lahayd inaad halkan dadka uga dirtid ama fariin noocee oo ku saabsan cilmi nafsiga wallahi fariimahayga haddaan maanta bilaabo dhammeyn ma ayay la tahay laakiin mid fariin haddaan u dir lahaa bulshada qof walba yar iyo weynba waxaad ogaataa xanuun kasta ama xaaladaha dhimirka ee qofka bini'aadamka la soo wajaho inuu qof walba ku dhici karo adigagaasi kugu dhici karo marka waxa markasta niyadad ku haynaysaa ugu horeyn inaad horta naftaada aad u dabacsanaatid oo aanad iska dhigin qof yani is adkayn adoo is adkaynaya waxa jirta mahmaah kana xasuustay oo ah dad xataa dhimanaysid dhararka iska duubaheed miya يعني is adkeynta inta leeg heerka aan ka gaarnay runtii waa wax aad yaabaysid mararka qaar
qofku way fiican tahay inuu adkaysi lahaado oo dulqaad fara badan lahaado hase yeeshee iscadaadiska fara badan iyo is adkeeyo joogtaasi beritoole way ku soo ridan kartaa marka waxaan odhan lahaa ugu horeyn naftaada u dabacsano oo adigu hoos isu eeg caafimaadkaaga maanka ka warhay waa meesha kaliya haddii aad weydo jirkaaga caafimaad jirkaagana aad waayeysid sababtoo qofka dhimirka ka xanuunsanay de ma shaqaysan karo waa qof aan noloshiisii wadan karin weeyaan qofka isma daryeeli karo qof ma daryeeli karo maxay tolay ma shaqaysan karo waxba ma qabsan karo basically marka ugu horeyn inaad horta adigu naftaada ka warhaysid qofka bani aadamka ilaahay de markuu yani wax walba ma noqonayaan perfect ama noloshaadu dhan ma noqonayso nolol farxad ku salaysan 9kii waqtiyo badan way la soo kulmaysaa caqabado ama xaalado noloshaada aad la kulantid kugu keen karaysa inaad xaalad dhimir gashid oo ah depression qulub ama walwal ama panic attack ama xaalad xataa qulub wad lahaan kartaa marka inaad niyadaada u sheegtid ama naftaada u sheegtid inaad xaaladaha ka gudbi kartid haddii xataa la tacaalaysid ama ay kugu dhacaan ugu horeyn fariinta kale aan diray waxa weeyaan inaad dadka bini aadamka ka amaan helaan qofna ha dhibaataynin يعني قفك ما هاي ما أنت وحن كهاد ليني سيدي مركي يجوه الرئيسية حنون قديم كم وحي عافي ما سايكولوجي بقى نكو ده بلعبي وحي هيد إن أركو قف ساعة لورد باتين يوم ما أنت واحد أركي ساقف عادية أو ده مارة الشقيستو مريه في عنكشون أو أصحابته كلام فاملي أو كله وقف كلا دعوة عيو أما سيك سهوا دعوة أما سانو كوجين مركا إنك اللي فتركينا دحدينا تجرب إنه قف كستوى حنيدي سكوتشرية حارد الله كل ما ينولش شيء وح ما أنت عقبتك لقى يا بقفك ولا يسفر بدن إنه حيو وكو إما تقف كانوا كل شيء كيستو واحد سكوت إذا مركز تأيند ما قف كل شيء كيسن يصير عادها وعين أو أتقف كي سيد القادم ما يسيد درين لا بقف كي ولا شيء كيستيد واي هالكلمة كاسة بحد قف كان واحد نقول كرت كلمة دي وجود ميسي أو تانا كرد بابي سبب قف كادي دونتاو مركا كو adigu is ilaali naftaada hoos u eeg dadka kale runtii aan iska dayno ku mashquulna yani waxaan arkay bulshadeenu moor xooga saarto dadka kale moor muraayad weyn la hor hayaa hebel eeg suu eegyahay heblaay eeg say tahay maxaa kan ku dhacay bariyahan sibay isugu buuqsan tahay bariyahan sibuu yahay anagii waxaan iska saarnay qofkiina qof kale muraayad daba haya ma garanaysaa oo isagana eegaya marka inaan taa runtii iska dayno oo adigu isku mashquul dadka ku mashquul lahayd dadka kalena maaragtay kelmadahaaga ilaali xadiis dhan baa ku soo aroortay garanaysaa dadku waa ka amaan helaan hadalka qofkii gacantaada hala doonanin si xaq darra hadalkana de qofkii ay maaragtaa ku dhaawicin oo kale asma waxaad ku mahadsan tahay dacwadeyda sad nooga ajiibtay waqtigaaga qaaliga ah noo siisay aad baad ugu mahadsan tahay sheer gareynta ama la wadaagista nala wadaagtay way aragnimadaada khibradaada shaqadaada cilmigaaga waxaan rajeynaya inuu noqdo waxay dad badan ay ka manaafacsadaan waxna ay ka faa'iidaan qofkii asma rajeynaya inuu meel kala xiriiro pageskeedii sirta maanka screenka ayaad ka arki doontaan qofkii u baahan in uu la tacaalo caafimaadkiisa maskaxdiisa caafimaadka maskaxda ama uu wax ka ogaado ama workshops ama training asma waxaad kala xiriiri doontaan pageskeeda halka waxay noogu dhamaatay xalqadeeni koobaad Psych Talks taasoo kaga hadli doono barnaamijyo la xiriira cilmi nafsiga xalqadeeni koobaad waxay ku saabsaneed cilmi nafsiga bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ama mental health in Somali community oo ay martii noogu heed asma dhamac oo ku takhasustay cilmi nafsiga aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh